أنا اللي كدحدي لبي طبعا روح ayaa la dilay midna ay ku dhimato la xabaanay koo iyo tobankina dhaawac oo dib weyn loo geystay anaga waxaan leenahay maadaama madaxdii aan dadka u hadlayno militariga shaqadan ay hayaan shaqo fiican dawladda way u shaqeeyaan laakiin markii arrimaha community-ga la gaaro inay dadka oo la dhaqmaan sidii tuugadii sidii dadkan oo dad wax weyn u geystay khalad waay information maanta haday ka rabaan society-ga dadka u warsiini lahaa waa community-gan amaan bay u baahan yihiin xushmad bay u baahan yihiin intaasna kama helaan every time xoolahooda ay la guuraan oo hadda arintan ka dhacday waa haadi area awaarta markay dhacdo dadka xoolaha way la guuraan biyo raadsanayaan pasture raadsanayaan markii dhulka la soo galo inay dadka dhahaan inaga tihiin dadkii xumaa ama dadkii la raadinaa waa qalad it's very wrong annaga madaxda hadana waxaan leenahay arintan inta kuma joojinayno waan dabagelaynaa waan ogaanaynaa xaqoodana dadka waan u keenaynaa ilaa waqtiga laga gaaro dadka community-ga xushmad la siiyo annaga madaxda hadana ma aamusayno saasa ogaanaysiin insha Allah waxaa dhacday shalay yoonka ah in la keenay 12 wiil oo hal meedi 12 dhaawac saaka waaga markuu barina waxaa la keenay 4 waxay isku yihiin 16 wiil ninka rag ah hadii intii la dilo qori lagu dhufto waxba dhib ma laha rag baa la dilaa laakiin nin rag ah oo muxuu ahaa inta geed warable inta loo qaatay lagu dilay wali anag maana arkin sokor ay dab saareen ciidankii sokorti markay ku laabtay rag lagu dhibqay wali anag taamayna Soomaaliya arrin aad u xun nagu dhacday dawladda Kenya waxaan ku codsanaynaa arrinta in meel nagala soo saaro fadlan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan anaga reehuluuqo waxaan nagu dhacay musiibo aad u weyn oo adag nagu dhacday marka waxaan naga la dilay shalay 12 nin shalay la dilay 3 gaar oo dhaawacana loo keenay nin xalay waan xabaalle ma taqaana la 3 gaarin hadda way naga maqan yihiin wali dadka dhaawac oo la doon ma soo gaarin marka dhibkaas aan ugu dhacay anaga reehuluuqo mar walba 6 goor buu nagu dhacay arintan hadda dad waxa jira inta la dilay qabri la geliyay oo aan ka soo faagno waraab soo faagay marka dhibkaas aan reehuluuqo daanaho aan dawladda Kenya yaan dheernahay marka dawladda nadishay baan hadana u sheeganaynaa waxa way dhibkaas aan haastaa loodii shalay waa la laayay rag waa laga soo qaaday loodii ma taqaana daawadii waa laga gubay raashinkii wiish ku noolaan hayna waa laga gubay biyihii cabi lahayna waa laga daadiyay roobna ma jiro waqti abaaraan ku jirnaa halay yaro biyo la iskugu imaadena waa shalay dhibkaas aan ugu dhacay rag badan baa ilaamanka ku maqan rag mariyay waa laga gubay raashinkii waa laga gubay daawadii waa laga gubay marka dhibkaas aan haasta hadaan nahay anaga reehuluuqo mar walba oo nagu dhaco nagu soo noqdaa marka waxaan codsanayaa in arintaas dawladda ay naga daasho oo ka fiidhoonato hadii kale heena ayna tiro dawladda anaga daatihiin reehuluuqo idima hayno dawladna idima hayno dhaqana idima hayno si alla saa doontiin yeela السلام عليكم أنا محنا ماموين كارلوقو قريهنا سيحن لنا ربلان وان تومي لنا وان تكل لنا وان دعيسن لنا أنا قرق مهاينو أنا الدنيا مهاينو أنا هوي مهاينو دول دي كان يشوفتاي نقول نقط أنا قاعد نقول سوى جيتي أنا قرير لبابيانا ميلا كوينا لنا يقول شيء منو وعيال كان يمن هتي ما تنو حول هذا قلقنا الباب هنقول جبينها كيف تكرب سوق هذا كرنو فرقايا أنا قرف أنا خبر منو ويل منو أذي منو خبرنا وان قدرنا أنا جيش النظافة نبكاين وجيش النظافة جيش أنك